oo marka ay halka colaadi timaado oo dadkii muslimiinta dhexdoodii iska dilaan oo murankaas uu dhaco oo cadaawadaasi timaado waxa meeshii ka baxaya siqadii kalsoonidii walaaltinimadii isdhaweyntii isku soo dumidii taalufkii tanaasulkii wixii meeshii ka baxaya waa xaaliqa dadku waxay oranayaan waararta culimooy maxaa xaq u sheegi weyday markay xabadii joogsatay wada hadallaan isku yeedhaya ama laba qabiil ha noqdaan ama laba qaran ha noqdaan ama laba qof ha noqdaan dadku waxay oranayaan waararta culimooy maxaa xaq u sheegi weyday culimadu maxay xaq uga hadli weyday culimadu maxay waxa uga aamus culimadu maxay sidaa ugu oran weyday war waxaan idin weydiiyey xaqan aaleedihiin culimadu may sheegto qof waliba sida uu doonayo xaq ma aha waar xaq waa waxaad oo meel yaal oo ku qoran kitaabka Alle iyo sunnada rasuulka weey waar waa waxaan leexleex lahayn waar ni waliba hawadiisa haday xaq la noqoto waar xaq ma aha hawadaad walaw tabaca al-haq wa ahwaahum lafasadat as-samawati wal ardu wa man fiihin hadii xaq iska raaci lahaa qof waliba wuxuu raadinayo wuxuu naftiisa ka doonayo haduu raaci lahaa samada iyo dhulka iyo wixii joogaaba waa fasaad ilaahayeen bay ilaahay bal xaq waa mid sugan waa ka kitaabka iyo sunnaha ku yaala weey islaaxu daat bayn marka sharciga loo eego waxa la yiraahdaa ee la doonayo in islaax la dhaliyo ee laba ummadood isqabtaan laba qof hay isqabteen laba qabiil hay isqabteen laba qaran hay isqabteen waar marka la doonayo in la damiyo colaada al-islaax baa loo baahan yahay marka hore islaaxa culimadu waxay yiraahdaan waa maxay waa al-wasaada weey waa dhaxgal waa marka hore maxaa la huba colaad baa socota waa in colaada la joojiyaa colaadaasi haddanto marka hore kana xabada ha joojiyo kana xabada ha joojiyo waa tan ilaahay subhanahu wa ta'ala ku tilmaamaya faasluhu baynahuma xabada marka la joojiyo taa waxa la yiraahdaa maxay waa qaybtii koowaad oo talaabadii la qaadayay weey talaabada la qaaday waa muslimiinta oo dhan bay saameynaysaa qof kasta oo muslim oo ay ka go'do inuu dhex galo labada ummadood bay saameynaysaa marka taasi timaado waxa imanaya wada hadallo xuwaar baa la yiraahdaa ama mufaawidaad wada hadalla imanaya waa in wajhi ama face and face la iskugu yimaado laga wada hadlo eeg xabadii markii hore waa la joojiyay markay xabadii joogsatay wada hadallaan iskugu yeedhaya ama laba qabiil ha noqdaan ama laba qaran ha noqdaan ama laba qof ha noqdaan wada hadallada waxa la rabaa in ay ahaadaan maxay qaar la isku soo hor fadhiyo oo labadii ee wax kala tabanaysay ay fadhiyaan inta la helayo inta wixii laga gooyay la saaro cid dusha laga saaro waxay noqonaysaa shay munkar bay noqonaysaa masalan hadii uu ninku fatwoodo oo uu cid dusha wax ka saaro oo yiraahdo kuwaas qaldan oo la og yahay labadii qabiilaysay isaga oo aan dariiqii la raacin sidii aayadu tilmaamaysay hadalka uu yiri baa munkar noqda sababtu waa maxay nabiyullaahi daawud alayhi salaam baa ilaahay nooga waramaya quraan kariimka muxuu yiri wahal ataaka naba'ul qasbi tasawwarul mi'rab idkhalu ala daawud fafaz'a minhum qalu la taqaf khasman baga ba'duna ala ba'd fahkum baynana bil haqq wa la tushtit wahdina ila sawa'i sirat إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة قال أكفلنيها وعزني في القطار قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك نبي داود بالبان قرآن لو سوغلي جيرين سو غلين محرابكي او مسجدكي كنت كان جيري ugu yimaadeen waxay yiraahdeen markay arkeen inuu yaray aan fariiray habiqin waanu murmaynaaye
لبنين أو إسهستبان النهي هدبا دحديدا عدالتك حكم مدبا هذا يوم مدعي وعنيري كاني وولالكيو سقاشة سبينود بولياي كأن سبين كاليابان لا سبين تقول هاي أيو يقولي سي أنا بقول كقدكته وعزني في الخداب مرنكي أدودنا ويقول شبيه وقعد كار نبي داود وحسمي إنه يراهدو لقد ظلمك بسؤال نعتتك حقيقة يقول كدل ميبود سؤال شاء وكوكو يديس سبان تادي سو سباني سو قدر صدو وكوكو دل ميبود إن بدنا وحش قدر ستا إنت إلهي تغانى مؤمنين تا بوي أنا وقليل معهم قب محا غالبي كقصة دعي نبي الله داود وحوق علينا أنو ننكي مدعي كي وحتعويني يبو حكا قرايا إن أنو ننكي كلمة ورئيسا تبين وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب هو يقين سيدي داود اللي امتحامي تبين ده استغفار بيقول له ويدست ربي يجيبون نقضي هل كيبو سجود قارئ أو سجود maxaa keenay labadii qof ay sarfadhiyay ayuu midna waraystay oo hadal u dhiibay midna hadalkii aanu ka qorin mufassiriinta in badan baa sida ku macneeya qaar way jiraan bad galay oo waxaan ambiyada u suura gelin ka yiri way jiraan kuwa hadalkooda gidaarka lagu dhifanay waxbana laga qorin laakiin macnaha ugu mudan waxa weeyaan marka dambe aayada ku xigta ilaahay ku tilmaamaya ya daawud inna ja'alnaaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nas waxa arkaysa halka hore in ay murkacatay marka uu sheekhu hadlayo oo wax oranayo ama kelmad uu fatwa bixinayo ma in lagu canaanto horta culimadu maxay oran weeyday hebel baa gardaran iyo hebel baa gardaran way cadaay waar horta dariiq bay leedahay waxan loo marayo oo qofkani uu gardaran yahay iyo inuu saxan yahay loo kala cadaynayo waar kuwa gaalada ayaa qawaaniin xataa leh marka la leeyahay la dagaalama cid taxadgudubtay waxa weeyaan marka halkii qaladka la gaaray ee gartii timi ee dariiqooyinkii soo dhamaadeen laakiin iyagoo laba ubadood istaynayaan hadii dabada qoladii kala gabiyo la yiraahdo tanba qaldana ku bilaaba ma haadeer sharciguna sida ma qorin aayadanina waa aayad maxay madluuma waar culimada waxaan lagu caay oo lagu maagi oo hebel muxuu waxa oran waayay la oran oo maxaa xaq caday weeyda la oran waar xaqu wacad yahay hal gaaro mufaawidaad hadaan wada hadal hay yimaadaan cidii qaldanayd marka golaha timaad laakiin sharcigu dariiqaas uu raacay waar marka aynu doonayno inaynu dad walaalo muslimiin dhaxgalo culimada afkoodu waa mid qura mid labaad ma jiro afkoodu waxa weeyaan maxaynu hubnaa in dagaal dhacay maxaynu hubnaa in dhig daadanayo maxaynu hubnaa dhigaasi inaanu sharciga ilaahay ku banaanayn ayaynu hubnaa laakiin garmaynaan gelin garnamaynaan qaadin sida awgeed baa shiiqu carabka ka ilaalinaya wax badan oo ninka caalimka ilaahay cilmiga siiyay dariiqooyinka raacaya laakiin mid aan waxba hayni isagu markiiba meel buu ku dul kufaya هذا لا يسوسارين ما علماء يسوسارين الجيسة طبعاً كي قدم يسوسارين وحوها طبعاً قدم واقع يصير الدين تتاي وعقد ترتمي أيوه مركا إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرين إنه علادنا إن جا قبوتيو إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرين ذات كان عادي علماء عايدين وعلماء هيربكود ومصموم سنبولي هذا إسكايلان إن علماء وحلاقة شاب هبل المحو حوار هواي هبل المحي كون وعامسه كون قبيلات بقى كترته كان يصير بو حيري وهذا علماء مركزي ومصموم يلبكود على إسكايلان وأغلب كلامات سيدا فهمتي ما حقه وسيدا كتابك يسنى وقتال وسيدا إلهي يريد